dalka Sacuudiga tigidh lagu daawan doono hal ciyaar ayaa lagu kala iibsaday 2 milyan iyo 660 kun oo dollar. Hadiiba aad hore u maqli jirtay shirkado iyo waxyaalo la mid oo lagu kala iibsaday lacag malaayiin dollar hal tigidh oo lagu daawan doono ciyaar ayaa dalka Sacuudiga lagu kala iibsaday lacag dhan 2 milyan 660 kun oo dollar. tigidhka la kala iibsaday ayaa lagu daawan doonaa ciyaarta caawa dhex mari doonta kooxaha PSG iyo isku darta kooxaha Al Nassr iyo Al Hilal oo uu hogaaminayo laacibka weyn ee reer Portugal Cristiano Ronaldo. waxaana tigidhkaasi iibsaday maalqabeen u dhashay dalka Sacuudiga oo lagu magacaabo Musharraf Al Qandi. haddaba ninkan maalqabeenka ah ee tigidhka qiimaha inta le ku daawan doona ciyaar kaliya oo socon doonta 2 saacadood ayaa waxyaalaha dheeraadka u ah waxa ka mid noqon doona in sidoo kale uu sawir la galo xidigaha kulankani dhex mari doono oo ay ku jiraan Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappe iyo sidoo kale xidiga kale oo dunida aad looga taageero iyo sidoo kale inuu la cashayn doono xidigaha ama kooxda ay guushu raacdo. haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay cidda qaadan doonta lacagta inta leeg. waxaana la sheegay in lacagtani lagu wareejin doono hay'adda Al Ihsan, hay'ad ka shaqeysa arrimaha samafalka. ninkan hantiilaha ee iibsaday tigidhkan qiimihiisu dhan yahay 2 milyan iyo 600 kun ee dollar ayaa ah mulkiile leh shirkad ka ganacsata guryaha. waxaana uu ku sheegay sababta uu tigidhkan lacagta inta leeg ugu iibsaday inay tahay si uu ugu bixiyo arrimo khayri ah maadaama oo lacagtani lagu wareejin doono hay'adda Al Ihsan oo ka shaqeysa arrimaha samafalka ee dalka Sacuudiga. Ahmed Dol, Home Cable TV. Hello. السلام عليكم. سو حبيبي هذا معها. وعليك السلام والوانيجي. waxaa kula hadlaya maamulka shirkadda. Haye. walaal waxaad ka mid noqotay macaamiisha bisha sida ugu fiican u isticmaalay adeegayga. waxaanad ku guuleystay abaalmarin dhan $600. abaalmarin. waa hagaag sideen u heli karaa abaalmarinta xaguu si ku yaala xafiiskiinu? waa caadi walaal ma baahnina inuu timaadid soo nambarkaaga saad ma laha. haa walaal nambarkayga ayaan ku isticmaalaa saad. say lacagta abaalmarinta kugu soo dhacdo moobilkaaga geli nambarkan. haye walaal. waxaad gelisaa xidig 880 xidig 7000 xidig 600 fargees. kadibna biinkaaga geli markuu kuu soo dhigo iyadoo si toos ah moobilkaaga kugu soo dhacaysa lacagtiya. oo walaal sidan waa habkii lacag diridda aniga imika lacag diray waa sidee? maya walaal lacagtaas sidan kugu soo dhacaysa aad ku guuleysatay. haa waartuug baad noo dhig moobilka ilaahay ummadda ha kaa qabtee. shirkadda Telesom waxay ku leedahay ka feejignow cid kasta oo ku sameynaysa ballanqaadyo sida inaad ku guuleysanaysid abaalmarino lacageed iyagoo sheeganaya shirkado kaana codsanaya inaad lacag u dirtid ama ka codsanaya inaad geshid saadkaaga oo aad raacdid qaabka u lacag dirista. macmiil moobilkaagu waa khasnadaada maaliyadeed ee fadlan ilaasho.